Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam. Insha Allah waxaan soo gelin doonaa muuqaalo taxana waxaan ku baran doonaa sida uu nabiga calayhi salaatu wassalaam uu u noolaa, sida uu Allah u caabudi jiray iyo sida uu la dhaqmi jiray. Waxaan ka bilaabeynaa maanta qaybta koowaad ee siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam. Daawasho wacan. magacaygu waa Shimhaad Maxamed. Channelka daawanaysan waa Shimhaad Xaaji. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabtaada iyo subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay tahay dhiirigelin si aan la wadaago mowduucyo caynkan ah. maanta waxaan ka hadli doonaa nasabkii rasuulka calayhi salaatu wassalaam. sida la wada ogsoon yahay, nasabka rasuulka calayhi salaatu wassalaam ama abtirsiinyihiisu wuxuu galaa nabiyullaahi Ismaaciil oo uu dhalay nebi Ibraahim. abtirsiyada nabiga calayhi salaatu wassalaam waxay u qaybsantay 3 qaybood. qaybta u horeysa marka nabiga calayhi salaatu wassalaam laga soo bilaabo waxay ku eg tahay ilaa Cadnaana, waana qayb culimada islaamka oo dhan ay isku waafaqsan tahay isla markaasna la hubo saxideeda. qaybta labaad oo iyaduna ka bilaabata Cadnaana waxay ku eg tahay ilaa nebi Ismaaciil, hase yeeshee waa qayb ay culimadu isku khilaafsan tahay saxideeda. in badan oo culimada ka mid ahna way ka gaabsadaan, qaar kalena way ka hadlaan. qaybta saddexaad oo ka bilaabata nebi Ismaaciil ilaa laga gaaro nebi Aadan aad ayay u adag tahay xaqiijinteeda iyo saxideeda, waxaana wanaagsan in laga dhowrsado oo aan la dhex dabaalan. waxaan markaas soo qaadanaynaa qaybta ugu horeysa ee culimadu islaamku isku waafaqsan yihiin dhabnimadeeda, hadday noqon lahayd kuwii hore iyo kuwii dambaba. waxaana weeyey sida tan: Maxamed bin Cabdullaahi bin Cabdilmudalib, Shayba bin Haashim, Caamar bin Cabdimanaaf, Muqiirah bin Qusay, Sayd bin Kilaab bin Murrah bin Kacab bin Nadar, Qays bin Kinaana bin Qusayma bin Mudrik bin Ilyaas bin Mudar bin Nisaar bin Macad bin Cadnaana. rasuulka calayhi salaatu wassalaam jilibkiisii waxaa la oran jiray reer binu Haashim, waxaana loogu magac daray awowgiisii labaad Haashim bin Cabdimanaaf. Haashim waxa uu ahaa nin ka sheeganaya reer Maka, wuxuu waraabin jiray xujayda oo aabihiis Cabdimanaaf ka dhaxlay. sidoo kale waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee jideeyay labadii safar ee suuratul Quraysh sheegtay oo ay Qurayshtu u kala safri jirtay Shaam iyo Yamaan. Haashim wuxuu dhalay 4 wiil oo kala ah Asad, Abu Sayfi, Nadla iyo Cabdimudallib, iyo 5 gabdhood oo kala ah Sharaf, Qaalida, Daciifa, Ruqiya iyo Junna. waxaa 9kooda ugu yaraa Cabdilmudallib oo ahaa nabiga calayhi salaatu wassalaam abowgiisa. Cabdilmudallib siduu ku dhashay waxay ahayd aabihiis Haashim ayaa safar ugu kacay Shaam, wuxuuna sii maray Madiina oo ku guursaday kulana aqalgalay Salma bintu Cumar. Haashim wuxuu sii watay safarkiisii Shaam. markuu Shaam tagay ayuu xanuunsaday. muddo dabadeedna wuxuu ku geeriyooday magaalo la yiraahdo Qusa oo Falastiin ku taala. Salma oo uur lahayd markuu Haashim tagay waxay dhashay wiil ay u bixisay Shayba. Haashim markuu dhintay waxaa mas'uuliyadii waraabinta xujayda qaaday walaalkiisii Mudallib markuu hawshaas muddo hayay ayuu Madiina aaday si uu u soo wado wiilkii uu walaalkiis Haashim ka tagay Shayba. markuu Madiina yimid ayuu Salma ka codsaday in ay wiilka ku darto, hase yeeshee way u diiday. markaasuu ku yidhi waxaan u dhiibayaa hawshii aabihiis iyo xaramkii Alle. sidaa ayay nagu dartay Mudallib. markuu Maka ka soo noqday isagoo wiilkii adeerku ahaa wada ayaa waxaa arkay dadkii Maka joogay, markaasay wiilkii u maleeyeen adoon uu Mudallib soo iibsaday. saas darteed ayay wiilkii ku dhaheen Cabdimudallib, adoonkii Mudallib. markaasuu Mudallib ku yidhi warhooge, waa wiilkii walaalkii Haashim. sidaa ayaa wiilkii Shayba ahaa kula baxay naanaysta Cabdilmudallib. Cabdilmudallib wuxuu dhalay 10 wiil iyo 6 gabdhood, waxaana 10 wiil la kala oran jiray Xaaris, Subayr, Abu Daalib, Cabdullaahi, Safar, Cabbaas, Xamza, Abulahab, Qiidaaq, Muqaawin. 6 gabdhood waxay kala ahaayeen Safiya, Arwa, Xakiim, Baracaatika iyo Umayma. Cabdilmudallib wuxuu noqday nin cajiib ah oo Quraysh oo dhan ka tilmaaman. wuxuu noqday odaygii Quraysheed, sida la ogsoon yahayna wuxuu leeyahay qisooyin caan ah oo kala duwan. halkan ayaan ku soo wada koobi karin. 3 waxaana ka mid ahaa duulaankii Abraha iyo qodidii Samsamka, kuwaas oo isaga iyo Qurayshba Ilaahay ugu gargaaray.
fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada subscribe inoo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah anigana waxay tahay dhiirigelin si aan la wadaago mowduucyo caynkan ah.